بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إلهي ما تسكال تبارك وتعالى إن كل ميي إن صورة قليي كلن كان عنوان كيسا ومحاضرة عنوان كيد وحوي سيدة هريب الله إعلاميي فقه المصائب مصائبتا inagu dhacaysa iyo fahamkeeda in si fiican loo fahmo oo fahamkeedu uusan kula qaloocanin si khaldan inaadan u fahmin sababta muxaadaradan keentay waxay ahayd munaasabadu waxa weeye waayahan waxaa caalamka ku dhex jira oo aad u faafaya oo qayladiisu ay meel walba qabsatay cudurkan ay ku magacaabeen viruska corona oo ilaa dhowr kun dilay boqolaal kun wax ka siyaasanna ku dhacay xanuunkaas ama caabuqaas markuu soo kordhay ayay culimadu ka hadleen mid muxaadaro ka jeediya mid khudba kaga hadla mid kelimo ka jeediya caalamul islaami carab iyo cajamba waa laga hadla waxaa looga hadlay oo culimadu uga hadleen wajhu nadarka shareecadu qur-aanka iyo sunnadu sidii ay u dhigeen masaa'ibta cudurrada xawaadiista dhacaya sidii qur-aanka iyo sunnadu u taxliiliyeen ama u sheegeen bay culimadu uga hadleen kadib waxaa ka dhalatay kacdoon ay hogaaminayaan dad isku jira dad fahamku la qalloocday muslimiina iyo kuwa mulxidiin oo diinlawayaal ah oon diin lahayn kacdoonkaasi wuxuu ku wajahan yahay in culimada arrinkaa ka hadashay la weeraro lagu tilmaamo inaysan waxba fahamsanayn la aflagaadeeyo la yidhaahdo waa jaahiliin la yidhaahdo waxayna garanaynin ba ka hadlayaan bal in wadaadadii culimada la dhaafaba ilaahay la caayaba walciyaadu billaah weliba dad soomaali ah yaa ilaahay ula baxay inay caayaan oy ku jeesjeesaan oo aflagaadeeyaan marka meesha waxaa ka soo baxday marka inay muhim tahay in masaladan ruuxoogaa sidii ka yara xeel dheer inaan isu dul taagno maalan haddaan tusaalayaal ka soo qaadanno soomaalida qoraalladay sameeyaan commentiga ama tacliiqaadka ama qaar mowduuc ahaan uga hadlayba mid baa wuxuu leeyahay magacyada inaan sheego muhim aha wuxuu leeyahay waxaa aada looga argagaxaa culimada ka hadashay mowduucan waa fayraska corona waa hadday carab yihiin iyo hadday soomaali yihiin waxay u hadlayaan buu leeyahay dariiqa ama qaab aan cilmi ahayn oo maxay leeyihiin ilaahay baa dadka ka aargoosanaya waxay leeyihiin ilaahay baa dadkii laynaya waxay leeyihiin ilaahay baa dadkii ku ciqaabaya hadallada noocaas oo kaleeta waa hadallo aan cilmi ku salaysnayn wuxuu leeyahay xanuunkani waa xanuun la yaqaano siduu ku dhasho bacteria inuu yahay noocuu ka sii yahay waa wax la garanayo culimmadii ku takhasustay cilmiga bakteriyaadka iyo biolojiga waxay bilaabeen inay raadiyaan daawooyinkiisa si looga hortago tallaalkiisa daawadiisa inay raadiyaan isla markaana waxaa suurtagal ah buu yidhi in sidii cudurradii horeba looga hortagay kanna in looga hortago oo daawo loo helo marka cudur laga hortagi karo oo sababtiisana la garanayo culimadiina hadda ay daawo u raadinayaan in daawo loo helana ay suurtagal tahay see baad u leedihiin ilaahay baa addoommada ku ciqaabaya see baad u leedihiin ilaahay baa addoommada kaga argoosanaya see baad u leedihiin ilaahay baa addoommada ku laynaya
waxba meesha kuma haysaan wadadow halkaasuu ka buskicay wuxuu ku sii daray su-aasha muhiimka waxa weeye annaga culimada haddaan nahay maaha inaan laablakac ku hadalno mowduuc khadhaadh oo kanoo kale ah inaynu iska hadalno cilmi la'aan ma ah annagoon u noqonin dadkii khubarada ah ee arrintan khubarada u ahaa sida qur-aankuba in amrayo fas'al bihi khabiiran walaa yunabbi'uka midlu khabiir sida qur-aankuba in amrayo innagoon khubaradii u noqonin inaan laablakac ku hadalnaay sax maaha inaan xujo la'aan iyo cilmaanaan iska hadalnana maaha inaan iska dhaxno dadkii baa ilaahay laynaya oon iska dhaxno dadkii baa ilaahay u cadhooday oo aan dhahno ilaahay baa dadkii ku ciqaabahay hadallada noocaas oo kalea looma baahna ninkaasi aayaduu daliilinaya anuma aqaano laakiin nin waxoogaa uun diinta wax ka garanayo u muuqda mushkiladiisa wuxuu diidan yahay oo ka dagaalamaya in la yidhaahdo musiibadan iyo cudurkan waa cuquubo ilaahay addoommadiisa ku ciqaabayo dhakhaatiirtii baaba garanaysa see buu cuquubo ku yahay buu taagan yahay ayib waa maagay marka culimadii buu aada u maagay oo uu ku sheegay inay aqoon darro iyo jahli hayo wuxuu intaa ku sii daray haddii cudurku cuquubo yah oo argoosi ilaahay ah dadka ilaahay u noole diinta u dadaalaya cibaadada badan ee saalixiinta ah ayaa cudurrada adduunka ugu xunxun ku dhacaya ayib ma la ciqaabay buu leeyahay kuwaas noocaas oo kale waa shubha waa xanuun buu leeyahay waxani midka masaajidka ku jirana waa ku dhaca midka baarka khamrada ku jirana waa ku dhaca ayib waa kelimo sax dadka dhan waa ku wada dhaca laakiin cuquubo ilaahay ma yahay mise ma aha ma yahay wax ka dhashay bini aadamka falalkiisa oo dembi ay galeen ka dhashay mise waa wax iska dhashay ayib kaasi saasuu u dooday mid kale wuxuu yidhi waa soomaali isagana wadaadku waa wadaad arrinta ka hadla wadaadku wuxuu yidhi caqliga naga ma ixtiraamin nagamana xishoonin hadduu yahay cudurkani wax ilaahay soo diray muxuu dadka xajka iyo cumrada ugu diidayaa buu yidhi ilaahay wuxuu soo diray oo addoommada ku soo diray oo ciidan ka soo dhigtay see buu xajkii iyo cumradii ugu diiday dadka war wadaaddow caqliganaga ha ku ciyaarina oo caqliganaga ka xishooda waa soomaali baa saa u hadla waa mid kale mid kaloo saddexaadna wuxuu leeyahay caqiidada dadka iyo camalkooda in cudurkan lagu xidhayo waa khalad maxaa yeelay cudurradu gaalo iyo muslimba way asiibaan beled kastana waa ku dhacaan xataa beledka ilaahay xurmada leh makuuba ku dhacayaaba marka maxaa gaaluu ku dhacayaa iyo gaaluu ka bilowday iyo dadka macaasidooda iyo kufrigooda iyo xageed ka keentay warkaas halkaana mid kale ka buskixi mid kale wuxuu yidhi shubkeena wuxuu yidhi daacuunkii cumwaas waa sanadkii 8aad waxaan malay hijriga inuu ahaa daacuun ka dhacay shaam xilligii cumar muslimiinta u talinay oo dad aad u fara badan oo muslimiina laayay saxaabo badanna ku dhinteen daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu waliba xilligii baytulmaqdis la furtay buu ahaa buu daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu yidhi ilaahay inuu muslimiinta u cadhooday muslimiin buu laayay shubhadaasuu keenay mid kaloo shanaad wuxuu yidhi war waxan waa cudure ka hortag iyo dadaal buu u baahan yahay wax walba diinta xaggeeda looma tiiriyo buu yidhi waxaan wuxuu u baahan yahay in la raadiyo qaabkii dadka looga hortagi lahaa loo daaweyn lahaa laakiin wax walba haddaad diinta salka u saartaan see wax idinka yihi mid kale wuxuu yidhi khatiibka arrinta ka hadlaya mushkiladiisu waxa weeye diinta unbuu garanayaa laakiin culumta kale aqoon uma laha halkaasaa laga soo galay mid kaleeto wuxuu yidhi oo ilaahay markuu addoommadiisa ciqaabayo ma dagaal buu kula jiraa addoommadiisuu abuurtay miyuu la dagaalamaya war waxaas cilmi la'aan waay ma intuu xanuun yar sameeyo yuu haddana dirsanaya addoommada ku dirsanaya miya isagoo adduunka dhanba hal mar halaagi kara muxuu uga baahan yahay inuu dirsado ciidan yar virus inuu dirsado muxuu uga baahan yahay waa soomaali kale mid kale wuxuu leeyahay oo ilaahay ma ciidan kale u waayay
ma ciidan corona dhaamu ilaahay waayay buu leeyahay markuu corona soo dirsanayo waa Soomaali kale wuxuu ku daray dawladuhu hadday iyo bini aadamku hadday daawo u helaan xanuunka oo ka adkaadaan soo macnaheedu ma aha ilaahay ciidankiisa baa laga adkaaday ya haddii daawo loo helo soo ilaahay ciidankiisa lama jabinin buu waa mid kale oo Soomaali oo jeesjeesaya waa kuwa iyagu kelimatu kufri oo cad oo ilaahay caayaya aflaga deynay hadalkooda ma soo goorin karo anida kaga kaaftoomo wararkaas waxa qorayad arkaysaan waa Soomaali qaar baa waxay ilaahay la iska celiyo ilaahiga dagaalka inuu wala jiraan iska celino Soomaali gaala ka soo dhaxbax Soomaalidu Kirishtan baa ka soo dhaxbaxay mulxidiin baa ka soo baxay kuwa aan diin lahayn baa ka soo baxay kuwa aan ilaahay rumaysnayn baa ka soo baxay Soomaali boqolkiiba boqol waa muslimtaynu taagnaan jirnay warka laga daba iimaan هذا السوشيال ميديا هي واحد القرية يكومنتيجا يفرقة يواحد هذا يعني لا صعتان أو تفهمي كرتان إن بدنا الصومالي كمدا إن الدين توهر كذا قاتشير مركز سيدي هو أردتم معه ولا السوق عليه وحاول الرامد كريستان بان نهاي أنا وكريستان بانو نهاي أنا إله دتك عذاب يمر ميسني أنا ودتك وأن حريصنا أنا ودتك كي حتى ندب وأدعينا إله القرآن كوكو الرمي يدتك عذاب هياي إله رنتها ما إله بايبل كشاجة حريص تبضن يعني أنا أقول رميسان كاسة إله بايبل لما يقان القرآن لما يقان حتى بايبل ما يقان وحوجا أفكار لو قلي دور كلمة لكن حتى بايبل كما يقان ولا كريستون كوسنا أقول ولا تاريخ ذي كريستون كوسنا أقول كريستون محي أدون كوسا صمية اسكدا تاريخ دي هراء حروب الصليبية إيو مجازيرتي جيستين إيو اسكدا عصر كان هدا أنشوا كريستون محي جيستين أدون قميسي جرى قلبيتك هي كنيسة ولا سعودي ما أهين مياه كريستون ما أهين أدونك سيجي أفريقيان كي بدها اللي قدبين هي مرايكن بيلو ولا جيست يا سميني يا كريستون بس سميني أدون كيان نيوكلير كوبا بإيه سو كريستون ما هين وقتين هذا أنشوفنا سربيا يا بابي سو كريستون ما عالم الإسلامي يا باشا الكوكراعي سو كريستون ما وأنو نحريس بدلنا هايو أنا حتى كينا خلافه ودعينا هذا هو أنت كنيسة لقى قال قيمة واحد لكن كريستون تاريخ دي سمت قاني ولا بايبل بعد قرنين مساكين تصوالي ذا كريستون كشيء قالوا بين شيكتنا مشكلة ده أقوين وحوي لقمة بيقالوا بينه لكن حتى الدين تيجالين ما قرنايا هذه إشكاليته مركميد نوعاسة ترى إستجانا إلهي عاي الدين تنا عاي طيب أنت سي وأسباب تكنتي إن الموضوع عن كهذا الله حكيني لأنه علماء سي موضوع وجهلين أيا واحد للسي إن إلهنا لو واحد قدبه علماءنا لو واحد قدبه دينتنا لو واحد قدبه لبكوا حد ويسان هوري وشيء قارن دين لهين يكوا مسلمين لكن مسألة كو قلوعتي إن المركب حوجا يستدرو تاجنون العادة إنه وقت هو كوبي هي لكن وحنا سكوده إن شاء الله تعالى إن سوكوب كوبه مسألة مركب كهلا إنه مصائب ترى عيسى سيد القرآن كي يصنده أيوقي حين وحي هوستك تا مبدأ اللي يلاحظوا مبدأ القضاء والقدر إلا الرميانة وحي كم يتاهي تيررك إيمانك اللي حدا ميت كم يدواه شنت تير الإيمان ميت كم يدواه ويان وتؤمن بالقدر خيره وشره إن قدر كالرميسه يوحو إلهي أدون كان قرشي يوحو الصمين أيوه إن أدرميس قضاها يقدرك كيس كوفي عن يكيس كوحمبا طيب صحابتنا ذاتك مبدأ بيني ويكبر النقون شيران وحن إجماع الإسلام أقول هاي مبدأ الصلاحان روحي بيني إنسان مسلمين هل الرميو الإيمان بالقضاء والقدر محل جور هذا وحل جور هذا أفر الرمود إن أدرميس كو wax kasto oo dhacaya ama dhici doona inuu ilaahay cilmigiisa ku hormaray oo ilaahay horay u ogaa inaad rumayso soo qodoma
إن الله بكل شيء عليم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقضب كلا بعد وحويان وحول بور دعيا انتو صندعين ألا مركو أغادي كدب هوري أسي أغا وقري هدنا وحول بور دعيا وسي قريه ووحا لغو قري الديوان كوين اللوح المحفوظ كي وحول بكو قريهين أيضا وحا شيغيسا أيضا فربضا آيات دي هذا اللي نقول تشيني مغرب كيف كمده ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنت نان أبو رمبا كتاب بكسي قري سمارت وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وحلول كدحديس كمقا أما الصبادة كمقا مجرى إلا ميلبك قرين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمامك وكتاب مركا وحول بوقريه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمر قاتك عيسى مركا إلهي هرو وقاعد وحكسته وأنا قري سو قضب كل هذا ما قضب كسد حادي وحوي شيء كستو أدونك كدعيا الله تبارك وتعالى دوني دي سوق دعيا المشيئة والإرادة شيء صن إلهي دونين كون كيسا كما دعي كرو وحكستا أو دعيا إلهي وحكو دعيا قدرة ديسا دونيتان كيسا إرادة ديسا وحسن دونين ما دعي كري وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إلا أن يشاء ربي وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم يعني مشيئة إلهي الدوني التيسة وحكا أصبح يمجر ومرتبط الصدحات سوما مرتبط أفراد إيمانك قضاء وقدر رمي مركا اللي قوليه مرتبط أفراد وحوي إن إلهي تبارك وتعالى أويهي متك وحوال بأبوره ورو أوغاديكو وقري اللبا مركو دعي ربنا ودون إنو دعو صدح مركا أفرادنا إستقى أبورو سميه وحسن إلهي سمينين كون كمتشرو من تشركرو صوما أما هنقضو الضوامضة أما الضوامضة أفعاشه وحي سميني أنا هنقضو كل إلهي بأبوره الله خالق الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون إذن كإستقى إذن أبوري عمل كينا إذن كإستقى أبوري مركا ومرتبط الخلق واحد مركا اللي قولي هاي قضاها إلهي قدر كيس الرمي أفرتا مرتبة لقوضا أفرتاس وساس يسود بيالا رمي مركا تسيدا الرميسو وحوال بودعيا إن إلهي هري أوغا إنو هري أقري إنو إساقو الدوني إنو إساقو أبوري أهيسي وصوصاري مركا تسا الرميسو ملاها أتكفى إيدي سوحوية ثمرات وحواي مبدأ مركات رميسو نولش هذا وحي نقونيسا نولل إسود لتران نولل ميزاما واحد ويدينا مرق يسترس يعذر كوجمريدو واحد هشينا كبر يسلوينا كوجمريدو نعم كون الشكر بيكنسن واتكشكرين نقمك إيا مصائبتنا واتكشكرين واتكو صبري سيداس دراديد روحا مبدأ الرميسا نولشيسو ونولل يسود اللي تيرانو ميزاما واحد وانا معناها آيات الوشة ربي تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير محل مبدأ الوشة لكي لا تأسوا على ما فاتكم waxaad sugayseen oo rabteen oo jeceshiin oo idin dhaafood weydeen inaydan umurgin hayla waxaad rabtay hadaad weydo waxa kaaga filan inaad tiraahdo soo ilaahay saa ugu matalgelin ma qornayn ha horu u qorna inaanan helin wakafa maxamed isugu dhibiba wala tafrahu bima ataakum
wuxuu idin siiyeyna inaydan ku kibrin hayl wuxuu ku siiyey hadaad og tahay inuu isagu ku siiyey kuu qoray kuu qadaray asagu kuu abuuray horeyna waxaan u qornaayeen maxaad u kibriba xoog iyo xeeladaad sheegata ma jira Soomaa ilaahay baa ku siiyey isaga qoray isaga qadaray kibir male marka kibirna male argagax iyo stressna male markaad mabda'a rumaysanto saas daraadeed waa mabda'a muslimiinta iyo mu'miniinta rumaysani xaalad kale kastoy ku sugan yihiin noloshoodu waa nolol degan waay nolol xasiloon waay nolol aan stress iyo wareer lahayn ka dhibanna waa sabraya ka barwaaqada haystana waa shukrinaya walaysa dalika illa lilmu'min mu'minkum ba iskale nabiga sallallahu alayhi wa sallam ومسألة مدى آيات كلا أي شيء يسور بالله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه روحي إلهي الرمية قلبي يسوها نونيا أو تجدونه طيب الدواء أنون ما أن عذر رضو مصيبوين كإلهي كانوا كمد مين مسا كمد ما مصيبوين كما كبحسين مسوا مصيبوين عذر رضو مصيبوين كي كمدي طيب musiibooyinka miyay iska dhashaan mise cid kala dhalisa mise ilaahay baa dhaliya oo adoomada ku dira meesha wadaadada lagu haysto halka waa wadaadada waxa lagu haystaa maxaad u leedihiin musiibadan xanuunka ah ilaahay baa adoomada ku soo diray meeshaas lagu haystaa wadaadada طيب أما قاركود وحي ليهن إن لي هذا وعيدا إلهي صادر وقلت القرآن الكريم كإله وحكوش شيء السماوات كي يرنولك بعيدا مدي سوين يتشوغان ولله جنود السماوات والأرض علماء وحي دادان وجموع السماوات والأرض رولك إيه السماوات كإسوغين تودي وحكو نحنولو دان عيدا إلهي واحد فلو سلط الله أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم بوي سمعاني هدي إلهي مخلوقات كي سكوا أغير أغير ضعيف سن وعالم كإنتي سكلا كسا لدي لها وكأت كان يا مركا معناه حلقة وذا وحول بإله بيؤه جانسيه وهدو أمر سيو وأمر قادنا يا إله أمر كي سكوري ما كان مجر مركا سوحي ليه وحكم إذا ملائكته سماوات كتشوكتا وعيدا الله وحكم إذا تشينك إنسي قدول كتشوكا إيه غير كود طيب حديث باكرة علماء قارقود حسن أي كدغ يان قارنا ضعف كشيغيان حديث كاس وحو لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم أي حهدلنا عيدا كإلهي ويناوي علماء ضعف بكشيغان من حيث المتن من حيث المعنى نضعف بيكون شيغانو وحيليهن لأنه أي حق إن لعنا لينو أقول هذا لا بالشيء ويقول للجورين لعنو كمدي طيب مركا إن إلهي تبارك وتعالى مصائب تنكسو دريا الضوامضة ويحقي سكا إيمانيان ويعقوبيهين قرآن كاقي حي مركو إلهي كهل لهي فرعون يقوم كيسي وحو الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مركي لك رواية مضح أذيقين أيو إلهي وحكو صدر الطوفان ضادت يالروبب يالطبيلو أي إلهي قدري يا صدري فأرسلنا عليهم إلهي باكو صدري wuxuu ku soo diray ayax beerahoodii dalagii wax walba ka baabi'iyay wuxuu ku soo diray qummalka suuska bahalkan yidhaahdee gala beeraha galamiya manjirba وهكذا وأن حشرات إلهي كسو دري وكسو دري الضفادع وبالك اللي هذا رها قريو إلهي الرها كسو فصحي رها بقى لو عقابه لو كسو فصحي وعيدا إلهي قريو وحو إلهي كسو دري إسلايقا ويوحا لو كسو دري ديك بقى لو كسو دري ديك بقى لو فصحي
آيات إلهي واي ولعد عدي لك لا دغدغي markii intaas oo dhan lagu soo diray kadib fastakbaru mayna waana qaadanina way isla weynaadeen way sii kibreen wa kaanu qawman mujrimiin marka yaa soo diray waxyaalahaas xasharaadku kamid yihiin ilaahay baa ku soo diray adoomadiisa ninkii la ilaahay ma soo dirino ama quraankaadan garanaynin oo jaahil baad ama mulhid quraanka macnihiisa diidan baad labada mid waay إلهي بقى دومده ku ciqaabo ku soo diray waxyaalahan cilmi darro ninka ku tilmaamay iyo laab la kac ninka ku tilmaamay yaa imma inuu jaahil iyo quraanka ka warhaynin yaa imma inuu quraanka macnihiisa inkirsan labada mid waay طيب الله soo diray masaa'ibto dhanna waa sidaaso quraanka kariimka ilaahay wuxuu ka cabiray في سورة الأنعام markuu ilaahay ka hadlay walaqad arsalna ila min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un ummado ayaan xaqooda rasuul u dirnay nabi maxamed hortaabaan ummado rasuul u dirnay طبعا rasuushii markay beeniyeen oo la kari waayeen madax adeegeen alla wuxuu leeyahay fa akhadnahum bil ba'sa ba'siban ku qabanay baasku muxuu yahay culimadu waxay leeyihiin waa faqriga iyo nolosha xiriiri gasha al ba'sa wad darrana waxay leeyihiin ku fasirayaan al asqam wal ilal al aarida fi al ajsam wa xanuunada wa cudurrada ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء نلشي لغو خريي فقري يا اسعارته كعدي سعر بر والضراء عذره لعلهم يتضرعون سيله وتضرعان يا كصدري يا صدري الله تبارك وتعالى قرآن كعديني طيب halka waxaynu marka kaga jawaabnay quraanka kariimka xadiista nabiga waa u tagi doonaa si cad wuxuu u qeexay masaa'ibta ku dhacaysa dhulka aadamaha ku dhacaysa noocay dooni ha noqotee ilaahay baa soo saliday ilaahay baa adoomada ku soo diray tabaaraka wa taala ilaahay baa abuuraya ilaahay baa salidaya ilaahay baa diraya ma wax iska dhaqaaqayo iska tasarrufaya ma waa wax ilaahay ku socda iraadadiisa iyo abuurkiisa iyo soo saarkiisa ku socda waa طيب qodobka inoogu xiga wuxuu yahay isagana u baahan inaynu ka jawaabno markuu ilaahay inuu soo saaray oo quraanku sugay masaa'ibtan dhacaysa haddana quraanku wuxuu isku xidhay musiibooyinkan dhacaya iyo aadamaha ficilkiisa musiibooyinkana inay ku imaanayaan sabab bini aadan khalad bini aadan galay macaasi iyo dunuub gaalnimo iyo ilhaad dambiyo in ay masaa'ibtani ku imaanayso sabab sanayso hadana quraanka qeexay sidaas daraadeed warkii ahaa madadka ilaahay la dagaalamaya muxuu ahay cudurradan cuquba loo soo diray miya ilaahay baa dadka leeynay ilaahay baa ku ciqaabay warkaas cilmi kuma salaysan waa iska caadifad sax ma maxaa daliilu aayadaha quraanka aayada aad u fara badan waay waxa kamida qowluhu ta'ala wama asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبة وح الله وحي مصيبة إذن كل عضو إذن كمر عضو وح كستو مصيبة إذن كل عي نوعي دونها أهد فبما كسبت أيديكم صببت يدو وحوي وحي قعمه نشقيستين وحالتي ما دين با السبب طيب أيدك الله وحولي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحي دبكو غاري مصيبه كو دحداي نفتادا سببها آيات كلا الله وحولي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم دقالكي وحي توماين markii la jabayo saxaabada wax soo gaareen oo su'aashani timid maxay ku dhacday anna hada Allah wuxuu ku yiri qul huwa min indi anfusikum naftiina agteeda ba jabku ka ahaad idinka sababsaday jabkan idin gaaray iyo cadowgiina inuu dhib idin gaarsiiyo طيب waxa kamida ayad rabbi leeyahay aw yubiquhunna bima kasabu kuwa badal lagu halaagayo
waxa loo halaagayo musawada ugu dhacayso wax weeye bima kasabu hadaa tiraahdo maya waxay kasbadeen ma aha markabkiiba motorkiiba ka halaabay washeeqo waxay kasbadeen ma aha waxa waa wax la fahmi karo markabkiiba motorkii ka halaabay cilad baa gashay cilad bay la halaagsameen ee ma aha dambi ay galeen ilaahi la halaagay ayada quraanna wada aqriisa sheekh baad iska shunu hada soo wax la yaab lama wax ajiib ayad kale alla wuxuu leeyahay wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat sababiyya bima qaddamat wax gacmooda hormarsadeen waxa kamida wama kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ayadaha macnaha sheegaya marka way farabadan yihiin ku dheeraan mayno ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون مصائبته إن عذاب تهينا أيضا ذا شيء صوما إلهي بعد ما ذكر عذابه كل ينيا وخلط من كيري أيضا حجي مري ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وحنو دنسينا عذاب كي سكيي ومتك الدنيا ده دون العذاب الأكبر عذاب كي وينا سكديس أما كي رابع دنسينا كي وينا سكديس لعلهم يرجعون سيوصل نقدان عذاب كل دنسينا يسيوصل نقدان ألا عذاب كعبري ومصائب تكون عايز وبارها والضفانتا وعذردا وقطرا وأنا بتقولي الردا مصائب تكون عايزة أيا لجودا العذاب الأدنى إلهي مك عذاب كعبر عقوب كعبر طيب أيضا معناها شيء مركوا فربديهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا حديث أسامة بن زيد ورسولك صلى الله عليه وسلم مركوا كهل ضاعونك إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم ضاعونك هو عذاب رواية كالأساس هذا إن هذا الوجع رجس وعذاب رجس وعذاب حنون كني ضاعونك وعذاب إلهي أوكوها لاقي أمده إذن كهري وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا ومض لقوا عقابة بأمرك الرلوس ودج لكن دولك قاربا كجا حري حنون كي سجاه ما بابين مربو صك عيا مرنوا تجا يا أبو النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه فإذا وقع بأرض ضعونك هدول دول كدع فلا تخرجوا منها دولك أو كدع يدي شوكتي سنكبحن وإذا سمعتم به في أرض دول كدع هداد مقشانا ومركا أيضا شوقنا فلا تأتوها هوتجين هجلنا حديث كاسي وحديث صحيحين كسو صاري وفايدين يا عذر كداعون كل هذا أسل كيس مركو بني آدم ككب لا بني ومد إلهي عذاب يبقى لجوها لاقي علماء معناها ضاعون كيسكو خلافان وقاروا إليهن حنون كستو عام وبني آدم كباب يضاعون بالله صدرت بقاركود وحي سيان عذرادن فيروس كان كل بكعية النوعية كلا قدسين أبتيرك كلا قدسين له ابن آدم كبابئين يقارب وحي سيان أحكام تداعونك لأن علماء ذي القارب وحي كفسران داعونك إنه يهي عذر كستو عامة قارنا وحي ليه ما عذر خاصة قنشداء صوبحة سيقونية شركة أقبتة حديث كنا كاستا معنا هذا بوحو تشينيا داعونك إنه عذر خاصة حديث خاصة قصارون المهم النبي صلى الله عليه وسلم أوفي رسالة سيدا يعني ولا تعامل داعونك عذرنا نوعا وكلا سوء ولا تعامل وسيدا هدا أدوك ولا تعامل يوه وحلي الحجر الصحي ماشو كد اللعي أنت كتشرتنا إننا صابحين أنت كم قلنا إني سنجلين سأدوك حتى قاك أو داويني نبي محمد بساء داوية صلوات ربي وسلام عليه ما نختار بوها يا جزيرة العرب وكفري ولقي علمي نختار نبض ما آخر سنة صلوات ربي وسلام عليه لكن هو وحي الربي واحد وحي الربي ونبي وحكو داويني صلوات ربي وسلام عليه طيب تانا وحي تلمانتي والنصوص تاسي تلمامين حنون نذا مصائبت أي حنون نذا يعذر ردو كم بديهين إن أي كو إيمانيان صببت بني آدم كالذنوب تيسين كو إيمانيان آياتها فرها بدن يكو وكلا سوقح نينك يدي مركب بني آدم دنبي أو قال السبب ومعها مصائبت رعيساي يا إما قرآن كو جاهل كي هي يا إما وحوي وإنكرسين أمران أحلاهما مر طيب
waxaan tilmaamaynaa hadda masaa'ibtan dhacaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommada uu ku ridayo xikmadda ku jirta maxay tahay waa arrin muhiim ah inaynu baranno maxay tahay xikamka ku jirta laanna ilaahay tabaaraka wa tacaala sharciga uu jideeyey axkaamtiisa sharcigana xikam bay ku salaysan tahay afcaashiisuna xikam bay ku salaysan tahay ilahay wax iskama sameeyo soo ma cabad iyo ciyaarna wax iskama sameeyo laakiin wax uu sameeyay xikmad buu ku salaysan masaa'ibtan dhacaysa marka cudurrada abaaraha dhulgariirada yani colaadaha masaa'ibtan dhacaysa bini aadamka in badan baabi'inaysa halaagaysaay xikamka ku jira maxay tahay maxaa xikmadoo ku jira ayib ilaahay tabaaraka wa tacaala xikam aad u fara badan ayuu ka leeyahay xikmadaha waxaa ka mida ku jira addoommadu markay kibraan oo qooqaan oo ishalmaamaan in la xusuusiyo inay ilaahay u tadarrucaan wataan soo marnay lacallahum yatadarracuun walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i waaddaraa maxaa xanuunnada iyo faqriga loogu qabtay lacallahum yatadarracuuna say ilaahay ugu tadarrucaan lianna ilaahay oo laysku miskiiniyo dhulka laysu dhigo la baryo xikmad weyn waaye camal ilaahay jecel yahay baa ka dhashay addoonkiioo la edbiyeyna way ka dhalatay soo xikmad weyn maa laanna haddaan lays edbinin bini aadamku waa kibrayaa waa dhaqaaqayaa wuxuusan ahayn baa ismoodayaa asagoo kibirsanoo cirkaa isla marhaya oo wuxuusana ismoodahaya ayaa waxoogaa xanuun yar lagu qabanaya markaasay xaqiiqadii soo baxaysaa hadduu ilaahay yaqaano gacmuhu taaganay haddii kalena cabaadkiisaa dhammaanaya soo ma cabaadkiisaan lala joogin sidaas daraaddeed lacallahum yatadarracuuna waa xikmo xikmadda labaadii waxa weeye addoommadani inay ilaahay u soo noqdaan oo khaladaadkan keenay masaa'ibtan inay ka soo noqdaan iyadana masaa'ibta way u imaanaysaa walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun say u soo noqdaan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إني أضمد التوبة كينان إلهي أصول نقدان إن بدنوا أيجا كم إذا نويد عدا إن مصيبة أي سبب النقطة إنه إلهي حصوصته أصول نقدان حقرنا يا قصون ذات كان كفء النقضي لعلهم يرجعون إنه أصول نقضي إلهي تبارك وتعالى مصايبتني مركب وسوعلين أدومدي اللي سوعلين قارن صون نقولين باجرو سي كبرية كوا إلهي وحكولا رقم يا مركب سي كبران سنة لنا سنة الاستدراج يجا مركب الله سي تديرين ولا سي لقوين كدبنا ولا تخلص طيب مركب حكمة الله بعدي وحوي أنا أدومدي صون نقدان حكمة الصدح هذه وحوي إن إلهي تبارك وتعالى عدو جيسا يقال هذا إنه كعقابه أيضنا وحتى البام يا أيضا بدنا القرآن ككمل مركو إلهي أمضى دورة كسوها الله سورة العنكبوت الله وحيري فكلا أخذنا بذنبه أمضى مد والبوان نقبلنا ذنبي جيس السبتي سنة أقبلنا قال لي الحادي ذنبي أي كلام بالله قبت فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إلهي وحكوها لاقي ضبيل قرور حوتا بالغو بابي قال وحلوها لاقي قيلو قال دولكا للقوي قال بيا إلهي كدري وبيا هلاقي كل قول لك محي الصواب صدين فكلا أخذنا بذنبه ذنوبي كلام واحد مركز إلهي وحكدم بيسي وما كان الله ليظلمهم الله موسى نهان أدومدي سمي الظلمين يا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها نفتو ظلمي خلطات كي قلام بالو بابي حديث كي أنه هذا صومرني نبي مركو كهل يضاعون كوحي صومهين إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم عذاب أها ضاعونكو ومدى إذن كهري إلهي كهلاكو كبابي حنونكم مركو وعقوبة قال هذا إلهي وكا أرقو صنيا وكو عذابيا وكو عقابيا وكو لينيا قرآن كي سنة دا شيء سوسا اسمع
قرآن كي سنة دي بس إذا أشرح حيا أنا ضد المسلمين وقرآن يسنة رمي زماننا ملحدين ملهن دين لا ويلا طيب حكم ككتشرة وحا كم ذا مصائب تأضوم هذا كل عيسى إن أضوم هذا اللي جعل كبر كأي حد جذبك إن الله شهد الله قد يقول الله حقا يسود للتيرانو حقنا أين وجود بين حقنا يسنو دعين معايا لهدي برواق اللجو السيدايو ومصائب تلقى إلاليه ويكبر يا وين قوقيا وأنا الطبيعة إلهي يجي أبو رتيبة قرنا إن السيدايهين ساز درادت بقى الله وحول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إلهي هدو أدومدي سرزقك أوفذين لها سند والببرواق الله قد لها حوله أرنا لهايين بيروه أبحي لهايين برواق لودين لها ويقوق لهايين بالله تبارك وتعالى ويكبر لهايين لكن إلهي وحو سود الشنيا وحو سود الشنيا قدر كوربو سود الشنيا سند بالله برواقين يا حوله با وترميا بيره با بحيا ولا برواقوبيا markay cirka isla marayaan oo ay waxooga ama kibreen ama kibir galay ayaa sanadka dambe qiyaastii baa la yareynaya xoolihii baa la baabiinaya sooma dadkii baa dhimanaya waa la soo noqonaya bini aadanka miskiinimadiisa la tusaya sooma marka zajri baa ku jira waxa ku jira mustaqbalka markaad aragto masaa'ibtan dhacaysa inay dunuub ku imaanayso inuu ruux iska ilaaliyo sooma warhooy waana qisaska quraanka kariimka ah marka la inooga warramayo ummadihii hore wixii ku dhacay cibarkii xikmka ku jira waxa kamida wixii iyaga lagu halaagay iska ilaaliya marka waa darsi islaaliya طيب kuwaasi waa xikam caama waxa ku jira xikmado khaasa oo dadka muslimiinta ah markay masaa'ibtu ku dhacdo soo hadda nimankii aan soo sheegnay warkooda kuma jirin hadduu yahay wax ilaahay soo diray muxuu muslimiinta ugu dhacay sooma oo maxaa xaramkii iyo dadkii cibaadaysanay loogu saliday soo warkooda saa kamid ma ahayn marka gaalada ilaahay uu ku salidayo masaa'ibta iyo markuu muslimiinta ku salidayo way kala duwan tahay meelaha qaarkoodna way wadaagayaan muslimiinta mu'miniintuna waxbay kaga duwan yihiin gaalada marka lagu salidayo mu'miniinta musiibaha ahaato عذاب هذا عقوبها هاتو لكن دنك كلا waxa ku jirta masaalix waaweyn baa ku jirta oo iyaga ugu jirta waxa kamid مثلا ruuxa muslimka markay musiibadu ku dhacday mu'minka ah dambi dhaaf baa ugu jira يا نبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه مؤمن كمصيبكم الرعب لب رفات همي مرق والبهار لب كله حتى قد أحد مدي سنة هالنقطة إلا إلهي ذنوبتي سكر رافع وحديث متفق صين لوجود من الله مجهل وحلقة يا أبا أعماش هذا إني كينه ويد الدمداف استغفار هذا إني كينه ويد الدمداف ما بلقوا فتشين واي الله إنه الدمداف كأجر ديجا مصائب تنكوكو عيسى طيب لو متكفي عن مرك دم بيجا إن لوجود دايو لوجود عذاب هي وحوجا عذر يا مصيبة أنت يكون صهر مرت الدنيا ده إن الله يكون ضعف كيرون مصلحة مرك غير هذا إنه يكون مخ طيب حديث معناها تلمام سواء حديث متواتر أول إن مصائب تدم بلاف كنا المؤمنين تا ومتواتر حديث تاس طيب وحكم إذا رفع الدرجات مؤمن كمركي مصيبة كل عضو درجات بوله كروجو قاده لكن درجات كعلماء قار وحي إليهن وحي كرلتها مركو مصيبة كصبره مصيبة دي واقو كل عضي مسألة الدم بلاف كوا مسألة كله لكن إن درجات أتكهشوا ثواب كهشوا صبر بيوبانته markaad ku sabirto marka abaalna waad ka heli darajaadna waa lagu kor lagu qaadi waxa ku tusay isagana xadiis abi hurayra nabigu sallallahu alayhi wasallam inna ar-rajula takunu lahu al-manzilatu 'inda Allah fama yablughuha bi'amalin hatta fala yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yublighahu dhalika ibn hibban ya hakim gheyrkood baa soo saaray
ruux waxaa jira ilaahay manzilo sare jannada uga qoray darajo sare loo qoray camalka uu sameeyayna ee wanaagsanna darajada kuma gaari karo alla agtiisana darajo sare uga qoran markaasuu ilaahay imtixaanaya masaa'ib buu ku ridayaa si darajadaasi u gaaro salaadaadii iyo soonkaagii iyo cibaadaadkaaga waxay ku gaarsiin waayeen meeshii ilaahay kuu qoray buu ku gaarsiin waayeen si ilaahay kuu gaarsiiyo marka masaa'ib buu kugu salidayaa si darajada aad u gaadho marka darajaadna muuminiintu waa ku helaan ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah ilaahay jannadiisa ruux nadiifa ruuxaan ahayn ma galo sidaas daraaddeed masaa'ibtu mu'miniinta marka la fiiriyo waa cadaab soo hormaray oo lagaga baajinayo midkii dambe sidaa waxaa tilmaamaya xadiidu abi hurayra nebigu sal lla alay wasalam ruux xanuunsanayuu booqday abu hurayra la socday ninka xanuun adag baa ruuxa haya markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam abshir bishaaraysa buu ku yidhi ninkii xanuunsanayay fa ina allaha yaquulu hiya naari usallituhaa calaa cabdi lmu'min fi ddunyaa xanuunkani waa naartaydii addoonkayga mu'minkaanan adduunka ku sallidayaa litakuuna xadahu min annaari fi alaakhira dheeftii naarta aakhare uu ku lahaa si adduunka ugu qaato aakhare aanan u cadaabin ayaa naartaydii adduunka kuugu soo hormarinaa marka xanuunkan u adkayso qandhadan iyo rafaadkan iyo cudurradan iyo u dulqaado wax ka weyn baa ku jira maslaxa ka weyn baaba kugu jirta in cadaab aakhare lagu geliyo soo ma dhaanto xanuunkan yarka ee adduunka saas waa ayib axmed ibn maaja iyo tirmidi keyrkood baa soo saaray waa xadiid saxiix waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan xanuunka ruuxa mu'minka ah khaasatan xanuunada halista hadduu u dhinto waa shahaado wuxuu la darajo noqonayaa sida ruuxa lagu dilay macrakada dagaalka gaalada ruuxa lagu dilay oo kale iyaduna soo maslaxo weyn maaha waa farbada cudurrada halista marka waa badan yihiin ee shahaadada lagu qaato waxaa ka mid a nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam ruuxii daacuun u dhintaa waa shahiid ruux calool shuban u dhinta ya maxaa la jira kaloora miya calool shuban ruuxii u dhintaa waa shahiid ruuxii biyuhu dilaan oo biyo ku dhinta waa shahiid ruuxii meeli ku dunto guri baa ku dumay dhismaa ku dumay wuu ku dhintay waa shahiid ruuxa macrakada iyo dagaalka lagu dilay waa shahiid islaanta ilmaha ku dhimatay iyadoo foolanaysay dhimatay ilmihii baa sabab u noqday u dhimatay iyo fooshi ayaduna waa shahiid buu nebigu sal lla alay wasalam ama nifaaskeedii bay u dhimatay ayib ruuxa dab ku dhacay dab baa dilay waa shahiid buu nebigu sal lla alay wasalam cudur dhinaca gala wadaatu jambi la yidhaahdo ruuxii u dhinta waa shahiid buu nebigu sal lla alay wasalam cudurka qaaxada la yidhaahdo ruuxii u dhinta waa shahiid buu nebigu sal lla alay wasalam ya wayattakhida minkum shuhadaa alla markuu ka warramaya dagaalka uu jideeyey gaalada in lala dagaalamo maslaxadii xikamka ku jira markuu alla ka warramay wuxuu yidhi xikmadda waxaa ka mid a inuu addoommadiisa ka samaysto qaar shuhada ah soo maa inay addoommadiisa shuhado ka soo baxaan alla dartii u shahiiday agtiisana darajaad ku yeesha ayaa ka mid a xikamka ku jira xanuunada laakiin dadka caqligaabka ama aqoonta lahayn ayna gaari karaynin macaanida iyo xikamka isaga sidaas daraaddeed baad garan kartaan xadiidkii nabiga sal lla lay slam fi saxiix albukhaari wagayri nebigu lahaa man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu ruuxuu ilaahay khayr la rabo wuu asiibaa ya xadiis ibn xibbaan ku yimid baa wuxuu leeyahay nebiga sal lla lay waslam nin baa u yimid xoog badan oo geel jiro oho malaha weligii baa xanuunsan markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi umumildam ma taqaana umumildam waa qandhada war qandho ma taqaana maya weligaa maadan qadhnanin maana qadhnanin weligaa xanuun kuma qabanin ima qabanin ninkii markuu dhaqaaqay ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ruuxii doonaya nin ahli naara inuu arko uu ninkaa fiiri buu nebigu sal alla alay wasalam bimacnaa waxa weye haddaaba lagu qabaninba ya gaar ahaan aada saaxiibu macsiyatoo dunuubna leedahay haddana xanuunka lagaa ilaaliyo gadaal bay jirtaa wey macnaha soo ma dhici kartaa inuu ilaahay ku cafiyo dhici kartaa in lagu ciqaabo wallahu aclam معناها هذا نوع حكوي معنا حديث كاتقانين النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ضدك وجو امتحان بدن إلهي امتحانه والنبي ذا
صالحين تاكو حبي سيد اللو كلا في عن يهبا امتحان كدتك او كلا بدين روح والبا waxa la imtixaanaya qadarka diintiisu dhantahay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam imtixaankaasi waa kee waa imtixaanka masaa'ibta uu ilaahay doonayo adoomadiisa inuu ku darajeeyo ugu dambi dhaafo ku darajeeyo wax ku sii Soomaalitan طيب حكمkaas marka ku jira arinta xigta waxay tahay u baahan inaynu iyaduna tilmaano mowqifka ruuxa muslimka looga baahayaa musiibadu markay dhacdo maxay tahay waxa waajib inaad ku sabirto سأستردد أي إلهي وحول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلهي قلبي قاقا هنون انت وحالك وضع إنه صبر كوا فتشيو صبر كوحا كسي في عن وحي علمدي إلى هذا الرضا إن هذا المصيبة دي كوكود عن الرالي كنقط وحا كسي في عن مصيبة كوكود عن إنها تكشكر دو وزيد درج علماء waxay dhahdaan sabirka waajiba labadan kale waa mustahab nadraali ku noqoto inaad ka shukrido waxa laga yaabaa inaad leeyahay bantiino leedihiin oo musiibo ugu dhacday seen raali ugu noqoni kaba daran ee musiibo ugu dhacday seen uga shukrini waa sharxi lahayn laakiin waqtigan loo saamaxay munaasabaad kale insha Allah taala laana dhinac markaad ka fiiriso masaa'ibtani ni'am bay noqoni ilaahay shar maxdiya ma abuuro الله تبارك وتعالى مركو أدومديسا مصيبة كوكينا مصيبة داسي مسلمين مؤمنين شك ما لها مصلحة كوتشرتا كوين ديب كان مصيبة كوتشرا هذه مركز سيد كوي اللي كرتا كود دريمي كرتا ومسألة شرح بها تفضل شيخ هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة الفضيلة والعطف القائم محمد الذي بعث waxaa loo baahan yahay sidoo kale inaynu ku waajahno xanuunada ama masaa'ibta wax la yiraahdo at-tawakkul ala Allah inaan ilaahay tala saarano sidaas daradeed argagaxan faraha badan iyo naxidintan iyo orodkan iyo kala cararkan iyo lugta la isku salaamahay iyo bahashi ahayd waxaan adduunka ka jiro bahashi inuu soo gaadhinba dadkii inay dhintaan maqarka u saaran yihiin waxaasi shaqo mu'min ma sooma waxa kala duwan taxadarka u tagi doona si xanuunka looga taxadari seel daawo loogu raadin malis daaweyn karo mas'ala kale laakiin adoon lagu soo gaarinba yaa geeri hortay dhintay inaad noqoto oo naftu ka dhacdaba sax ma ilaahay tala saaro waxaan ilaahay cid ugu talagalay buu asiibi cid uusan ugu talagalina asiibi maayo cid uu asiibayana way sii qoran tahay ma akhta'aka لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ومبدئي أنا كصورني الإيمان بالقضاء والقدر طيب تام عليه ذو ما هيا لقى فهمين
xanuunkani hal isu dhiibo oo yani wax weeyaan muxuu ahaayay yaan la qaadanin ijraa'aadka iyo processka la isku ilaalinaya la qaadanin ma aha laakiin adoonka muuminka ilaahay buu ku xidhay qalbigiisuna ilaahay buu ku xidhay tayib qodobka xigaynu doonayna inaan tilmaano wax ka tilmaano wuxuu yahay haddii uu dambigu ku yimid waxaan u jeedaa musiibada iyo cudurrada iyo masaa'ibtu hadday dunuub la galay ku timid ama gaala dambi ay gashay oo gaalnima ama dad muslimiina dambi ay galeen baa musiibadu ku timid kuwa aan dambi lahayn muxuu ugu dhacayaa soo su'aal baan war saalixiintii iyo dadkii diinta u taagnaayay culimadii iyo dadkii zuhaada dadkii ahlul khayrka abuu cudurku ku dhacayaa seebuu dambi ugu yimid seebuu dambi ku keenay su'aal bay sooma taana wax weeye jawaabteedu iyadana way caddahay quraanka kariimkuna waa cadday xadiista nabiguna waa cadday sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu inoo sheegay markay masaa'ibtii iyo fitanku yimaadaan intii sababta u ahayd kaliya inuusan ku ekaanaynin in kalena uu gaari doono ayadaasi wattaquu fitnatan la tusiibanna alladheena dhalamuu minkum khaassa waxaad iska jirtaan fitno intii dulmiga samaysay kaliya aan ku ekaan doonin ee markay dhalato dadka wada camimi doonto طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسي عديسي حديث زينب بنت جحش با كميد البخاري ومسلم سو ساري النبي صلى الله عليه وسلم وحي تري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا النبي قال اسو غلي اسو ارغغخسن زينب اسو غلي او له لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لا اله الا الله عرب هلاك با اسغنادي شر دو حقي سهلاك uga sugnaaday فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ابو النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج تادكي كؤكا عليني يا انت سوك لغا فري ابو النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا سو فكينا بس واحد طيب مركز زينب وحي كتر يا رسول الله ان نهلك وفينا الصالحون رسولك الله يوميانا لهلاقي انغو ددكي صالحين تو وناغسنا نغو دخجيران النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر فيكم القبث ها idinko dadkii wanaagsanaa idin dhex joogan baa la idin halaagi hadii dhexdiina xumaantu ku badato buu nabiga sallallahu alayhi wasallam Soomaaliya xumaantan badatay waxa ka dhalanaya musiibadii markay dhalatana intii xumaanta sameysay ku ekaan mayse in kalena way gaari طيب وما حيساسي ku dhacday de ilaahay baa qadaray ma ilaahay baa la doodi ilaahayow intan kale maxaad ugu riday adu ma dhigi kartaa haddana haddaad su-aashaa keentana jawaab baa jirto xikmadda waa la garanaya waa la caddeeyey waxaa ka mid ah axaadiista macnaha caddaynaysa xadiidu caaisha bukhaari muslim baa soo saaray sidoo kale rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam yaqzuu jayshuna alkacba ciidan baa kacbada ku duuli doona faida kaanuu bibaydaa min alardi yukhsafu biawalihim waakhirihim ciidankii kacbada duulaanka kusii ahaa meel bannaan oo dhexdaa markay sii marayaan baa koodii hore iyo kooda dambeba dhulka lala goynaya waa la wada halaagi عائشة واحد الرسول كيلا وحن كوري كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم سيل ليس لها لاقيا إيجو أي كل احتران ضد كودي إسك السوق شوكتها إيه ضد عن أيجا بكم ده هاي رواية كلام حيلا ده هاي كل سوق قصبي على الصعد يعني قارئ جد كي بكذا صعد يعني واحد الله صعد ما قرنا يان كوا سوق إسك شوكين وواحد الله صعد وما قرنا يان كوا سيد دم بمال وإسك الله صعد صوما dadkaasaa la socda dambi aan lahayn ujeedaday u socdaan aan la wadaagin see loo wada halaagayaa bay tiri nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa aakhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim wa laysa halaagi bu nabigu kullu dhulka la goyn laakiin aakhira marka la gaaro nin walba niyadii uu ku socday baa lagu soo saaray ya kii duulaan u socdayna kacba nin ku duulaya niyadiisi baa lagu soo saaray wal cadaabi kii aan waxba kar warhaynin oo la xudkan col iyo abaarba moogaha kaasina hidaniyadii uu meesha ku socdo in baa isaga lagu xisaabinaya laakiin adduunka waa la isla halaagu nabiga sallallahu alayhi wasallam Soomaaliyeed waa meesha Soomaalidu yiraahdaan dab munaafiq shiday mu'min baa ku gubta ama muslim baa ku gubta dabku mar hadduu kaco ma muslim iyo mu'min buu kala yaqaan iyo munaafiq yani waxan kada sabab waa yeelan kara gaalku sabab waa u noqon kara مؤمنك عاصيga dambigiisu sabab waa u noqon kara laakiin markuu kaco
وحوي وحوجاريا ضد كلا وجاريا إلهي بس إذا قدري ضد كلا وجاريا يجود دم بمله مياه لو عقابي إلهي بكر ذو كو ابتلاعي لكن أيجا مصالح بأوجد توكان صو شرحنا صوما وحلو جرد يا أيجا مصالح كلا كتشرتا دنا كلا تو وقفي عن إنه اسم كل عم بأيجا وجرتا سان صو شرحنا سيداس دراديد أيا وحي جواب طاهي تاسي داعون كي عمواس الصحابة كل عي إلا يي ما عدا إلهي بوها جواب تيدي ماله يا مصيبة إلهي كيني بوها دنبي إنا يكون من الشك ماله لكن هدنا أنتي أي دشوا صحابة يا مؤمنين تهالشهادة كقاتل ويتخذ منكم شهداء طيب قضب كحيجة إذا نوبان إنه وحجاء استول تاجنا وحوي هدي اللي يدا هذا وحن إلهي باكيني مصايبة إلهي باكيني إلهي بعدومي سكوس اللي ذي يجي الدنبي جودان السبب معناه هذا ما وحويان عذر كهل يسديبو يان داول الرادينين يان لقى هرتجين تدكو قرد عيان للداوينين يان محو هاي حجري لقو سماينين ولا ميل لقو حرين مساسا لقى وضع لا وضع معنى مية كلا لازمية يعني مايا ومصيبة إلهي كياني هذا نوح على الرباء بني آدم كو إنو قاطو أسباب تكو هرتجي لها أما كو داوين لها تانا الدين تاينو شاكتا إسكما هريمان اسم مصيبة إلهي وي iyo iska daaweeyo ka hortago dhaqaatiirtu baadhis ha sameeyeen dadka jirayna hal daaweeyo iskama hor imaanayso ninka fahamkiisu iska hor keenay ba wax ka khaldan yahay laakiin diintu iskama hor keenin sidaas daraadeed war cudurka hal laga hortago wax walba diinta yaan loo tiirinin iyo meehay wadaadadu waxayna garanin bay ka hadlayaan war saxsan ma aha cudurka in ilaahay loo tiiriyo abuurkiisa keenidiisa sabab ahaantana bini aadamkii wuxuu sameeyay loo tiiriyo hadana dhanka kale shariicadu waxayna amraysaa inaan isdaaweyno sooma shariicadii ina tiri waxani waa musiibo ilaahay baa keenay ba hadana waxayna leedahay iska daaweeye sooma waxa ku tusaya nusuus wara badan quraan kariimka oo ku soo aroortay isdaaweyntu sooma طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم واسي شرح بل النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب داء الدواء برئ بإذن الله عذر كستداولي عذر كي يداودي سمركي إسهلان روحوا وعافي ماذا يا لكن محوكوا عافي ماذا يا بإذن الله صمرت إلهي إذن كي سوا هدان داودا يعذر كانوا إسليهين وهدنا إلهي أوصن إذمن لكم داو بيس بإذن الله هل كان وحين كفهني عذر أن داولها إن إلهي مسودة جنين حتى سمعنا عذر رفع ربضان بني آدم كداوة أولايه سوما ما هاي إن داولها إن داوة إليهن لكن بني آدم كجاهل كأولي الله مفضين الولي الله مفرين داوين كان أي دخاتير تا يبني آدم كمالين بميت برانا يانا ما أها وحو الصوى السمايين وسر كونك كتشرتو إلهي كو أبوري oo maalin ba qayb loo faydayo la tusayo waay hadana maanta intan qaata qaybahan kale ma wali qolo kale la sugaya Soomaali marka cudur aan daawo lahayn ma jire istaaweeyo nabi sallallahu alayhi wasallam macnaheedu hadaynu si kale u dhagno waxa weeye musiibadu waa qadar ilaah daawada la isaga daaweynayna waa qadar ilaah qadar ilaahi baan qadar ilaahi gud dafcinayna Soomaa سأصدرت النبي نوح الدواء من القدر وهو ينفع من يشاء بما يشاء داود اللفتة وقدر إله داود وقدر مصيبتنا وقدر لبضودنا وحلين لي سوء استعماله تداوي عباد الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أدود ما إلى إسداوية إلهي داو مسود الجنين عذر مسود الجنين إلا داو مسود الجنين موي هل عذر موي بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كعذر يا قرنه ها ودأله دقني وداوة ماله يا مرة دا دقوذ لأن يرنما إن لجوس عليه صورة قلبه هرايم بعضو سعودي هل كعذر مويه أنت كلورن داوي إلى ذهب النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه طيب معناها سوى معناه بهان إنه أدو فهنو إلهي مقادير تيسا وحقوق تلقى إن ليسكو دفعيو مدن إستقى كيني وحونا إنوتشي دي تن أنا كيني تن كغهرتك وفي صدى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
markii uu dhacay sanadka daacuunku dhacay shaam ka dhacay cumar ayaa baxay madiina ka baxay shaam buu aaday ciidamadii raggii hogaaminayay Abu Ubaydah ibn Jarrah ka mid yihiin ayaa marka waxay kaga hor yimaadeen intuusan shaam gaadhin shaamna waxa baabi'inaya daacuun cumar meel dhuxuu ku hakaday markaasuu wuxuu la tashaday saxaabadii bal iigu yeedha buu yidhi muhaajiriintii uu la tashaday ansaar iigu yeedha waa la tashaday maslamatu fathi iigu yeedha raggii fatxu maka kusoo islaamay soo jiray waa la tashaday war maxaan samaynaa ciidankii buu wadaa akhyaartii saxaabada la socota ma gallaa mise waa noqonnaa laga tashanay taladii waxay u badatay aan ka noqonno oo inaan gelin markaana wax nasal lama hayo oo nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam cumar waa noqday marka wuxuu go'aansaday inuu noqdo dadkii dhexdoodii buu dhawaaqay wuxuu yiri inni musabbihun ala dhahrin fa asbihu alayhi bari haduu waagu ii bariyo gaadiidkan saarnahay idinkuna gaadiidkii nafuula waa noqonaynaa buu Abu Ubaydah ibn Jarrah amiinu hadii umma wuxuu ku yiri afiraran min qadari Allah ya Umar Umar ma qadari Allah baad ka cararaysaa buu ku yiri ya daacuunku waa qadar ilaahi miyaad ka carari buu ku yiri markaasuu Umar wuxuu yiri law ghayruka qaalaha ya Abu Ubaydah ilaahi waxay ku fiicnay nin aan adiga ahayn inuu hadalkani ka soo fulo nacam buu yiri nafirru min qadari illaahi ila qadari illaah kan aan ka cararayno cudurkaana ilaahi baa qadaray meeshaan uga cararayna iyo sababteedana ilaahi baa qadaray qadar ilaahi baan ka cararaynaa qadar ilaahina waa u cararaynaa markaasuu waliba miithaalu keenay wuxuu yiri ka waran adoo geel wata haddaad tog ku soo hoobato tog laba dhinac leh dhinac waa barwaaqo dhinacna waa abaar haddaad dhanka barwaaqada geelaaga daaqsiiso soo ilaahay qadarkiisa maad ku daaqsiin haa buu yidhi dhanka abaarta haddaad daaqsiisood u dhigtana soo qadar ilaahay maadan ugu dhigin haa buu yidhi maxaa rabtaa buu yidhi marka soomaalit marka daawadu waa qadar ilaahay in la baadho waa qadar ilaahay waa in la baadho waa in la raadiyo ama tallaal ha noqoto iyo ka hortag ha noqoto ama dadkay ku dhacday qaabkii loo daaweyn lahaa ha noqoto ama kuwa ayna wali soo gaadhin sidii looga xakamayn lahaa ha noqoto waa ilaahay waa wax loo diray inaynu samayno ku dadaalo bini aadam maaha wax shareecada ka hor imaanaya maaha say u dhigeen wax shareecada hardinayo ka hor imaanaya shareecadii waa faraysa inta markuu Umar sameeyay kadib baa waxa yimid oo arintaasi dhacday Abdurrahmaan ibn Auf oo meesha ka maqnaa markaas wuxuu yiri Nabi Maxamed baa waxaan ka maqlay sallallahu alayhi wasallam isagoo leh haddaad dul maqashaan daacuun ka dhacay ha gelina haddaad ka maqantiin ha gelina haddaad joogtaanna ha ka bixina idinkoo ka cararay markuu Umar xadiiska nabiga maqlay ijtihaadkiisa iyo go'aankiisa uu waafaqay Soomaa فحمد الله ثم انصرف إلهي بكم هذا عليي مسألة سي وعداتي معنا كدي ابن عمر والله بتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقهي الصحة كاوي مرك ما هذا إسكالله بلا كعي أو حوجا أنتي إنجليش يرى أخرستين أما دور كتاب يرى لق ميستين حو هاي إلهي بقدير تيسير نصوصتي يوحي إسكول فرها إسكور كينا يا ما فقهي من فهم كصحة الدين تساسوها إلهي مصائب تيسه iyo waxyaalo adoomadiisa u jiday marna iskama hor imaanayaan shariicada ilaahay iyo cilmigu iskama hor yimaado hadi xaqiiqo cilmigu waa laba nooc cilmi nadari la yiraahdo waxay ila tahay beenna waa noqdaa runna waa noqdaa laakiin cilmiga tajriibiga bini aadamku uu taabtay laabka la galiyay cilmigaasi marna quraanka iyo sunnada ka hor imaan maayaan laana waa cilmi ilaahay kana waa cilmi ilaahay laba cilmi oo ilaahay leeyna iska hor yimaadaan laakiin fahamka bini aadamka marar badan iska hor keenay tayib waxaan qodobayadana labada qodob baan kaga baxaynaa insha Allah taala qaar koodo iskaal galiyay ilaahay intuu wax kale bini aadamka ku halaagi lahaa uu heli kara wax ka waaweyn muxuu fayraskan yarka ugu soo diray muxuu ilaahay uga baahan yahay qoliyahaasi waa jees wuxuu ilaahay ahkaamtiisa oo lagu jeesana waa gaalnimo waadix gaalnimo cad waay hadaad muslim tahayna waa gaalnimo cad hadaad gaal si ahaydna mulxidana ilaaha ku hanuunay وإسكع عدهاي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما إلهي آيات كيسي رسول كيسات كوشة تيسيسا
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحبها عذر دارنينا مؤمنين هذا هيدين قالوا ذي دينتي واتكبح ذين بالله تبارك وتعالى إلهي لقوا ما تشيس دينتي سنة لقوا ما تشيس أحكام دي سنة لقوا ما تشيس آيدي سنة لقوا ما تشيس سومالي ما أنت دبعتها يستوحى كم ده يعني وحي برتين وحلي هذا كومنت بيبرتين ومد أن موقتها امتحان كان روحه أها أنت آدم قرال كجلينه وسيده وحلا قراء آدم وحدوبها أنت آداب تقرال كينات برات وحين نقطة عيد والبين وحس كقرا مركز واحد مدامركو تعليقين ينو سن إلهي باركين بقى وحلا صعد وسنشرين ملايين وسن طول صارنين وحدون يسكقوري قار واحد بتشير كفر برنا يبا قار بقى قرال كبرنا يبا قار بقى كبرنا قاب كسي وحلون نقديو سيده كومنتي الله سمي قار بقى كبرنا ورواي هي هذا حتى كبر برنا إذا هذا الوحوجا أما إسكا معقولة أما الدم بك إيمانين كبر برو لكن هذا هلس إسكالي سماه مسألة ده إلهي تبارك وتعالى مخلوقات كي سميت ضعيفة محوصة درسانية وحي لم يتهي أوكله قل يهيلي إلهي محو كان عذا يبهاش اللي إلى هذا محايا عارضة محو مثال وقصة ميسانية وواحد عموه إلهي محو كجواب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سؤال حد ما إلهي محو فيروس كصوت رسالة محو حيوان كيركا كما ركاد قد كيبا بتقول عذيبا وحب إلهي يقول تلقى لو حيالها يركع كان عذي مثال له الصمين وحيالها ضمادة قصة اللي ذيه أديكوا كلا إن لقول ميوه وحابت كل عذيبا والله يضل به كثيرا إن بدن بو إلهي كل منيه وكوا ساء جيس يوكلا ويهدي به كثيرا إن بدن إلهي وكوا هنونين يا ووحي قرنا يا إن حكمة ربي كتشرت أما هفهمان أما يسم فهم مد الله بعده إيه هدي إلهي أدومدي سمرودي كصدر له صومين ده مرودي ومركب ربه ونجح حق بدنا صوما كبيرانيين تين مرودي لوجو صدره إن فيروس ير لوجو صدره كيف حكمة دولو يا فيروس ير لوجو صدره وأدون كيو خل جليو ومريكان يا يا عالم كيو كعوفريستو أول الرفاضو تاسع حكمة ده إن لفهمه ولو صومارت حكمة الربي إن لفهمه تاسع ولو مركا حكمة داسا كتشرت إلهينا وحو دونو درسان تبارك وتعالى وحاجز قلنا يانا بتشيره مسألة كاليتو مهمة باندونا يانا هلكا قليو مصائبة إلهي تبارك وتعالى هي مقادير ترلعية لو مدلي شدو الدم بقاقي عيبت هذا لكن مقادير تهدادا الدم بكلها هين ولا دلي شده سيداس دراديد وحي الدم بأتوض بوبايه وحي مصيبة هذا الدم بكلها هين الصبر بوبايه حتى المامز آيات القرآن كإله فاصبر إن وعد الله حق وحي كوكو يمد صبر محال قدم بيسيه واستغفر لذنبك محال الديدية ذنبك إنا ترى إلهي بقدري وردنبك كتوبت كان إلهي بيقول قدري محال قربتها وروحني واخلدنيه إلهي بقدري وردتك حد ظلمني إلهي بقدري خلط كاغا إن أدليشته إلهي بقدر سحما صوما ساس دردد بوحلي هذا قدرك وحلو حجيستا مصائبتا إلا ما حجيستا معايبتا وعيبتا هذا هو صوماليدنا وماشي ترى هذا الدقن قدر تقانا إيه لقى ما كرهنا وحي خلط دوا هذا يقول ترى هذا قدر إلهي واحد صحنا ما حتى عقلا موسى صح وهاي هدي مقاديرتا أي نقطة خلادات كإن لود اللي شذ الروح يسكت دفاعنا عد والباقلي هذيك اللفت هذا حولها أنت لقاته أول لو قدعه أول لو قديله أول لو قدرباحه واحد قصة لو قصة به أيها وعلولة الصبر دوا مقاديره سوساز ما هذا رأي سؤالي ومقاديره بالقولة مركب مقاديرتا هل كان لو مد اللي شذ عيبت هذا كتوبة كان قادنا مسؤولية ده سمارت لكن دنك وحي آذان سبب الله هين والدم بيجي سآذان الله هين صح كصبر وأنا دليشان كرتها
isla masaladaas waxa ku imaanaya xadiidkii dhaxmaray qisadii dhaxmartay nabi Muuse iyo nabi Aadam nabi Muuse iyo nabi Aadam baa wada hadlay sida nabi sallallahu alayhi wasallam Muuse wuxuu ku yiri Aadamow adiga waxa tahay ninka khaladkiisu jannada naga soo saaray khalad aad gashay baa jannada looga soo saaray markaas Aadam wuxuu ku yiri Muuse ilaahay baa ku doortay hadalkiisa iyo risaalaadkiisa ku doortay ma waxaad igu eedaynaysaa igula dagaalamaysaa amar ilaahay qadaray intaan lay abuurin intaan ilaahay bay abuurin wax qadarna miyaad Muuse igu haysata nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa hajja Aadam Muuse waa laga garhelay marka Aadam xageeb uu xujeysanayaa ma khaladkii iyo dambigu galay buu xujeysanayaa maya wuxuu leeyahay dambigayga inay ka dhalato adoomada in laga soo saaro bini aadamka jannada dhulka la keeno qadar ilaahay bay anu geedkii baan cunay khalad buu ahaa khaladkaygu halkaas waana ka toobad keenay marka wax ilaahay qadaray aadamow waxaan Muuse haygu eedaynin saas way macna waa xadiis saxiixa oo waxa soo saaray Bukhari iyo Muslim qodobka u dambeeyay kaga baxayna wuxuu yahay culimada shariicada iyo culimada cilmiga caafimaadka ama culimada falaka ama culimada masaa'ibta iyo xawaadista ku takhasustay culimada iyada ah sideedaba maxay kala leeyihiin qolo walba haday qaybteeda ka hadasho waxay taqaano maxad gudub iyo jahli baa maya culimada aynu ka wadahadlo midna xanuunka culimada caafimaadka noocyadooda kala gedisa markay ka hadlayaan masaa'ibtan ama musiibada cudurka ka hadlayaan dhankay uga hadlaan wax weeyaan cudurkan maxaa keenay maxaa sababay sababtay raadinayaan bacteria virus muxuu ka dhashay Soomaa adigu ama fiidmeer buu ka dhashay ama mas buu ka dhashay ama macmal iyo lab lagu sameeyay buu ka fakaday viruskani ama muxuu ahay meesha doonto u tiiri ama doofaar buu ka yimid ama shimbira dhalay Soomaa sababtay raadinayaan sababtii markay helaanna waxay doonayaan inay xanuunkan u sii abtiriyaan hadduu qaybo kala gadsan leeyahay oo ay yaani wax weeye ay u sii bahbah u sii kala sameeyaan viruskan hadda waa bah gooniya Soomaalidu farisyadu waa barbadin Soomaa waa bah gooniya markaas haddana waxay daraasaynayaan bini aadanka markuu ku dhaco saameyntu ku yeesho xagee uu ka saameeyaa kan hadda wax weeye corona oo kaleeto sanbabku ku dhacaya Soomaa ruuxa neefti baa ku dhagaysa qandhu keenaya waa qufacaya beer ku qabanaya Soomaa kadib jirkii wuxuu bilaabayaa inuu isdifaac yiraahdo istifaaci jirka wuxuu soo saarayaa awood xoog badan buu soo saarayaa oo cadawgan iska celi buu leeyahay difaaca xoog badan ee jirka ka imaanaya laftiisa dib uu la imaanaya waxaas waa waxay dhaqaatiirtu qoreen anu dhakhtar may laakiin waxa jira culumta qaybo akhriska lagu fahmi karo iyo qaybo hoose oo ninkii ku takhasusay uu garan karo Soomaa inahaas waa inaha marka kadibna dhaqaatiirtu markay fahmaan sababta iyo xanuunkan bini aadamku soo saameeyo kadib baa waxay raadinayaan daawadiisa maxaa laga hortagi karaa maxaa lagu daaweyn karaa dhaqaatiirta shaqadooda taawa shaqada noocaas in looga dambeeyana way tahay ayaga takhasus kale hatta culimada shariicadu markay doonayaan barnaamijka noocaas oo kala waa inay dhaqaatiirta ehelkiisa uga dambeeyaan waa sax Soomaa laakiin dhaqaatiirtu kuwa muslim oo diinta yaqaan mooyee miyay ku sheegi karaan xanuunkan ilaahay baa keenay xanuunkan iyo ilaahay calaaqada ka dhaxeeya yaa iska leh culimada iska leh Soomaa xanuunkan iyo bini aadamka khaladaadkiisa calaaqada ka dhaxaysa dambiyada bini aadamku galayo iyo xanuunkan calaaqada ka dhaxaysa yaa iska leh ma dhaqaatiir baa ku sheegaysa dhaqaatiir baa waxay ku leedahay aidisku wuxuu ka dhashay dambi ilaahay laga galay zina faaftay allahumma inuu dhakhtarku muslim yahay oo diinta garanaya mooyee cudurka iyo bini aadamka calaaqada ka dhaxaysa dambiyada bini aadamka iyo masaa'ibtana culimada shariicada iska leh cudurkan Allah keenay Allah ha keenay ujeedadii xikamka ku jira cadeynteedana culimada iska leh dhaqaatiirtu ma laha
اللهم دخاتيرتي مسلمين تي هذنا علماء أها مركي وحكا قرآن جوانب تاوي عديان ويكهلان أما مرضن بقى علمك عافيماتك إيا علوم تكلم مادك إيا تدين تلك الصاري نين كان دخترك وحكو شرحي كراء وحيالا مادئة انت كبضنا مرضا فكرة أما ما بقرنا يو أما وابي إنكرسيه أنا مركي جوانبتي أن دخاتيرتو كهل لكرين هذه علماء كهلان ودخاتيرته هو شو دي بيفرق شدين ما هو لين الحين بيقالين بس هو شو دي ولا بجانب واحد دخاتيرته نقيب إليهن علماء الشريعة نقيب إليه قالوا والله نقيبته هذا كهل ليس نيكي قيبتي سكهل لمركي اللي هذا هو شيء دخاتيرته تدقش بكتيريا يدني فيروس كان ركبة إسقالي سيقول عشان يجا قرناي هذه إلهي بكي مدياكو يده حاجات كانت وهذا روك هذه قيبته أنا كأقان سجى قيبته أنا دكتور كأقان نيك علماء كيقان نيك الشريعة يقان كيقان قيبتي سوق الله كان قيبتي سوق الديني سيدا سوي معنا بل وحقيقة دخاتيرتو إنيسان شيء كرينين وحيالا بدنا وشريعة الشيكتي أو عذرا سببوه لكن أيجوا هنا قاري كرين وحكم إذا مثلا نبي وحكى صلى الله عليه وسلم منو يري فناء أمتي بالطعن والطاعون أمتي إذا وحبا بإني لها لاكسميس والضرد يضاعون مركز واحد الرسول كله الطعن الضرد ده قرنيه طاعونكم حويه وحويلي وعقوبة واخزوا أعدائكم من الجن وحو كإيمانيا ضرد تشينكو إذن دريبو كإيمانيا تشينباكو دري تشينكي كو دريبا وحكا شيء محي طاعون دكتور كان مقرن كرا على قدر كذا حيث تشينك يعذرك دكتوركم مقرن كرا على قدر كذا حيث السحر كي حنونك دكتوركم مقرن كرا على قدر كذا حيث تشينك يحنونك دكتوركم مقرن كرا إيش بني آدم كإليسيا إيوه على قدر كذا حيث محي يحنونك مشي كران مشي كران قيبها شرائع ذاك هذاش دين ذاك هذاش تشينك بني آدم كسامين تو كله هاي سحر كسامين تو كله هاي إيشو سامين تو كله هذا هاي محو هاي وحيالها هاي عافمات كسامين تو كله هاي سيد اللولة تعالي قاب كلود داوية ما دام إنه عذر كي قرنين يضنا ما قرنيان روحي ويباريان قلبي قليليان أجسي قليليان دلع كباريان تحاليل بيكون سمينيان وحيليان روحا النجا والنوف يويه قدر ملك للآت ما قرن كرو وين وداد لو كانوا ولا قرآن سهر صمه وين أذكار له أخري صمه وين إلهي لو بريو ورهده بالكن دختر با إسكالها نو خوقينينه قيبتنا دان كهذا الله صمه دخاتير تقيبت هذا وهو أقول له وأنا أديننا إني كهالله حق بيوليه أنا لا قيب الحق لنا قيبت أنا لنا وحويان إني علماء كهالله شرعة ما حكتلي عذر كان عذر الله ميت كان مصائب كم حكتلي وحكم إذا مثلا فوق هذا قار كم إذا شافعية ده هي حنفية ده وحيليهن مصائبتنا وكان مركز دعانا عذر هذا عام كان دعان مساجد ده لقى قنوده نختار ما نداهي مساجد كقنوده ما داهي أسباب تعذر هذا اللي جرف فيها كم إنت مصائبة أسباب اللي جرف فيها كم إنت عدا لأنه وحيليهن وحي كم إنت هاي حوادث تعام كا أو قنود كأسلهان لو تشري صلاة إلا قنوده مركز يعني وحن كوضع صح إن تخصص كضد كاللود دايو لكن تخصص كيبا الله بكلا ميت كم مادي أنا دخاتير تا إسكاله ميت كم معنوي جاء إيوه على قدر عذر رضي مصائبتي إلهي كذا حيسا فعاشي سيدا يصامين يسو أسباب تكينتو بين آدم كذنوب تيسا داوين تلفت هذا قيبة كم ذا وقيبها شريعة تلمانتيها محوها هاي أسبابتا وهكذا قيبها سي وقيبها شرحني سيداس دراديد فهم كاس بوحو يا فهم كالصح ذا إيو إن مصائب ترعي سقاب كاللو فهمه وحي لبدبادين كان لبدباديو لداويو لبارو لقهر تقو لكن هذا مع ذلك مدي ودي سينا يتوحى مصيبة إلهي كهرتقينا وحكم ذا إن إلهي اللبريو تبارك وتعالى ذنوبتنا لقى النقضو دنبيذا لقى اللابتو إلهي اللو اللابتو تاسا كم ذا وحنكو ختمة يا كو جبجبينا يا كوا أيجو إلهي عينيا دين تعينيا تشيسيا كحد كتبيا قرآن الله النوع عاص السمينيا كلية توحديه كرنا إلهي ذي صاحنوني
إلهي هيدين سو هنونيو أدان إدين هلي كرنمان توايدين هنونين لاي لكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وحن سيدنا ليه كلمات كاد قريسان iyo sidaad u hadlaysaan iyo qaabka aad u hadlaysaan iyo maagidaad ilaahay maagaysaan iyo jeeska aad jeesaysaan waxaad ogaataan ilaahayna dhibi maysaan cid kalena dhibi maysaan waxa ay ku soo noqon doontana waa idinka haddii ilaahay ka baqalaydin yiri oo si madax adeegtaanna wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al'izzatu bil ithmi kuwa marka ilaahay ka baqalayda way basiiki way ka sii daraanba alla muxuu yiri فحسبه جهنم waxa idin sugaysa ee idin kaafin doonta hadii wacdi idin kaafin waayo waana idin kaafin way ilaahay daaya war nabad galiye war diinta nabad galiye war ilaahay aayaadkiisa nabad galiye hadii la idin kari waayo ood kibirtaan oo aad si madax adeegtaan فحسبه جهنم meel baa idin sugaysa marka ilaahay laga baqo ilaahayna tabaaraka wa taala diintiisa xifdiyo cuduradan iyo masaa'ibtana ilaahay ummadaha ka rafciyo إلهي تبارك وتعالى أنتو سنقول إنها كيلاليو أنتو كود عين إلهي تبارك وتعالى كعافيو إلهينا تبارك وتعالى هنا قسم التبحية هنا إنك بدباديو هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم